markii nebi aadam iyo xaawo laga soo saaray jannada waxaa la sheegaa inay kala lumeen. xaawo waxay ku degtay meel Maka u dhow, halka aadamna uu ku degay meel ka mid ahayd dhulka maanta loo yaqaano Hindiya. sannado badan oo ay isbaadigoobayeen, aadam wuxuu go'aansaday inuu u soo safro dhanka Maka, wuxuuna soo fuulay buurta dheer ee Carafa, waxaana buurta dusheeda ku wada kulmay aadam iyo xaawa, halkaasi oo dib ugu midoobeen. sidaasi oo kale Maka waxay leedahay ahmiyad kale, waana goobtii ugu horaysay oo Alla weyne lagu caabudo si qaalis ah. haddaba isla goobtaasi waxaa markii ugu horaysay ka dhisay meel Alla weyne lagu caabudo nebi Ibraahim iyo wiilkiisa Ismaaciil. sidaasi oo kale Alla weyne wuxuu jannada ka dhisay dhismo la mid ah Kacbada oo ay ku dawaafaan maalin waliba 70,000 oo malag, iyagoo aanan dib dambe ugu soo laaban dhismahaasi oo lagu magacaabo Baytulmacmuur. markii nebi Ibraahim iyo nebi Ismaaciil ay dhammeeyeen dhismihii Kacbada, waxaa dhismihii ka maqnaaday qayb yar oo u baahnayd in la dhagax dhigo. sidaasi darteed nebi Ibraahim wuxuu Ismaaciil u diray dhagaxii goobtaasi la gelin lahaa si uu u soo baadigoobo. laakiin Alla weyne ayaa soo afjaray dhismihii oo dabcan muujiyey in dhagaxii goobtaasi la gelin lahaa inaan laga helayn dunida, wuxuuna soo diray dhagax laga keenay xagga jannada. jibriil oo dhagaxii siday ayaa dhulka dhigay una tilmaamay nebi Ibraahim in meesha ka bannaan Kacbada uu geliyo. waxaa la sheegaa dhagaxaasi markii dhulka la keenay inuu ahaa mid aad u cadda oo iftiin badan, laakiin dembiyada iyo kucaasiyadda aadanaha ee Alla weyne, dhagaxii wuxuu bilaabay inuu noqdo madow daran.